Assalaamu calaykum. Soo dhawaada asxaabta sharafta badan. Maanta waxaan qaadan doonaa 3 shay oo looga baahan yahay in ay dhalinyaradu barato kuna dhaqanto mar walba. Waxaana inii soo gudbinayaa anigoo ah Cabdishakuur Cabdikariin. Daawasho wacan insha Allah. Lambar 1. Baro sida cuntada loo kariyo. Xirfaddan cunto karinta waa xirfad aad u muhiim ah. Gabdhaha bas ma loogu talagelin. Wiilasha iyo hablahaba way ka dhaxaysaa xirfaddani. Maxaa yeelay beri ka maalin haddii aad safar aadid ama aad wadanka ka tagtid oo wadan kala tagtid, waxaa lagaaga baahan yahay inaad cuntada karsatid oo baratid sida cuntada loo kariyo. Waayo mar walba ma sarnaan kartid maqaaxi. Sidaa laajigeedu waa inaad barataa xirfadda cunto karinta. Laga yaabee maqaaxida waxaad kula kulmaysaa cunto naftaadu ay jeclayn. Lambar 2. Baro sida nasiino loo qaato ama nafta loo nasiyo. Waayo jidhka iyo nafta waxay u baahan yihiin nasiino ama hurdo ku filan. Markaa sidaas laajigeed xilliyada aad firaaqada tahay ama aad jaaniska haysid, naso xilli kugu filan. Lambar 3. Baro sida loo dhoola cadeeyo maalin walba. Dadkana dabeecad wanaagsan kula dhaqan sida uu rasuulkeenu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam. Waayo dhoola cadeyntu waxay kuu soo jiidaysaa farxad iyo qalbi wanaag. Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Thanks all of you.